رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدن حسن علي خير iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa galabtii soo gaaray galinkii dambe magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa garoonka Addis Ababa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Itoobiya iyadoo sidoo kale ay soo dhaweyntiisa qayb ka ahaayeen kooxaha hidaha dhaqanka isagoo silaan sharaf dhinaca kale ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka Itoobiya. رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية وفدك للسعودية أيام مقالة أديس أبابا وقيب قليا شير مدحيدك ميدوغا أفريكا وسنة كان ديرادة لوغو سارايو هرمارينتا لنيرادا ودمدا قارada أفريكا قران سيدي شقابور وحبرشو عافماد iyo daryeel kale u heli lahaayeen si ay u noqdaan cudud la mid ah dhalinyarada asaagooda ee ku nool qaaradaha adduunka. sidoo kale shirka waxaa looga hadli doonaa ama isbedel lagu sameyn doonaa wakiilada ururka midowga Afrika ee jooga xarunta Addis Ababa sida warbaahinta qaranka uu sheegay safiirka dawladda Soomaaliya u jooga wadankan Itoobiya mudane Maxamed Cali Nuur. shirkan sanadkan oo dhan theme-ka oo dhan ayaa wuxuu ahaa dhalinyarada Afrika si loo horumarin lahaa oo muxuu ahaa youth dividend in Africa ayuu ku saabsanaa sanadkan oo dhanba theme-ka ayuu ahaa. marka waxa ka soo bixi doona wuxuu u noqon doonaa saldhig weyn iyo wuxuu u noqon doonaa yani iddiilo wanaagsan dhalinyarada Afrika gaar ahaan wadan walbana inuu isaga si gaar ah marka muxuu ahaa isaga domestication uu ugu sameeyo wixii ka soo baxo shirka waxyaabaha ka soo baxo. marka waxaan rajaynayaa shirka markuu noo dhamaado in dhalinyarada Soomaaliyeed inay aad iyo aad uga faa'iidi doonaan oo ah xagga waxbarashadooda ama ha noqoto muxuu ahaa isaga dhan walba ha noqoto inay qayb ka noqdaan horumarka dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Itoobiya iyo mas'uuliyiinta kale ee ka tirsan qaaradda Afrika ee ku sugan magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa shirka ka jeedi doona khudbad aad u muhiim ah oo uu kaga hadlayo horumarada Soomaaliya ee gaartay iyo sidoo kale qorshaha dawladda ee la xiriira horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama dhalinyarada Soomaalida ay yihiin 70% bulshada Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Addis Ababa wadanka Itoobiya.